بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلاة دائمة أبدا نلقى بها وجه الله يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الصادقين وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين وأشهد أن الحلال ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه وأن الدين ما شرعه وأشهد أن ساعة آتية لا ريب فيها وأشهد أن الله يبعث من في القبور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله الله على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل فهدى الله به من الضلالة وعلم الله به من الجهالة وكثر الله به بعد القلة وأعز الله به بعد ذلة فصلوات الله وسلامه عليه ما هطلت الغمائم بتهتان المطر أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون انت أكذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا العفة في هذا العصر؟ وموضوع سلية هدي لها يدمو وحكده من باب براروجين، من باب إسحسوسين، من باب فذكر إن ذكرى تنفع المؤمنين. العفة aad baan uga soo fikirayay toloof alcifa af Soomaali maxay ku noqonayo imika walaalkay ka helay dhowr sanaan. لماذا العفة في هذا العصر؟ العفة زمن كان ما أنت أن جوجنه أو إلهي مهدي سبحانه وتعالى أدمودو إنه يهي زمن دب النقش الدينات الدونك واحد ضد دول صارن أو إذل زمن وحن جوجنا زمن دب دين والله أقول نقنيو waxaynu ka soo baxnay qarni dhan oo diin la dagaalan ahaa, qarni lagu aasay wasay maleeyeen iyagu ay isiraahdeen diin waad aasteen. filosoofkii reer Jarmalka Hegel ayaa waxa laga hayaa isaga oo dad meel banca meel weyn ka hadlaya ayaa hadaladiisii caan ka noqday. waxaa ka mid ah filosof reer galbeedku aad uga dambeeyaan innagana buugtiisa inoo soo tarjumi jiro meelaha lagu akhriyi jiray ayaa waxa laga hayaa inuu yiri maantaynu laynay ilaahiyadii kii ugu dambeeyay xaasha lillaah. markaa ku goodinayo ku celcelinayay halkaasay ku dhamaatay wax dambe oo samada ku xirani. nolosheena inaga dhiganayna, dhaqaalaheena inaga qorayna, siyaasadeena inaga ka macallina, qaab nololeedka bulshada inaga afnaqaana, cilaaqaadka ka dhaxeeya dadka iyo aadamaha inaga qorani, kiniisadanba wax weydiin mayno, مساجد دنبا تلا ويدين ماينو، واحد دين شقا كله او ادون كديسا كشقين دونا مجرو aad baa sheekadiisa loo qaatay meel kasta laga dhacay qarni dhan baa dagaal lagu la jiray diin wax la yiraahdo. waxa soo dhawday markay shaqayn waayeen ay socon waayeen ayaa imika waxa adduunka ka jira dareen baahi qoto dheer oo aadamaha ku jirto maxay raadin diin raadin. ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه عالم كان رباني هوري وحو يري وحا كجربو قلبي قفك مؤمن قفك آدمها قلبي وحا كجرتبو يري مال دين مويانة وحكا لآني بوحن إلا دين تا قلبي الله ديغانا قلبي مرن أينبو هذا.
waxaan uga socdaa maanta dib u soo noqosho badan baa jirta diinta loo soo noqdo nin walba tii uu diin hore u haysan jiru dib ugu noqday kiristaanku maanta dib bay diinahooda u buuxiyeen kiniisadoodii aad bay u buuxaan jaynaha dhagaxay caabudi jireenee buudha dib bay ugu noqdeenoo aad baa loo faafiyaa bal diinta labaad ee adduunka ugu faafitaanka badani waa diinta buudhaha maanta ee dad badan ay qaataan ee yurub iyo maraykan xoog ugu faaftaa waa diinta jaynaha ee sanam caabudka ah fadhigaad maanta halkan fadhidaan iyo meesha intaa leeg isku imaatinkiinaas weliba dhallinyarada u badanina isna wuxuu markhaati kac ka yahay dib u noqosho ay muslimiintuna diintoodii ay dib ugu noqdeen oo istikshaaf dambe inay mar dambe soo istikshaafaan diintoodii ay doonayaan iyagoo oo dhadhansanaya odhaahdii cumar bin khataab radia allahu canhu wa ardaah maalintii uu u tegey si uu miftaaxa masjid alaqsa uu gacanta ugu dhigo isaga oo faraskiisii hogaaminaya meel dhoobaana soo maro dharkii ka qoyeen oo dhoobo midhan dharkiisii kaga yaalaan yarkii isagu u shaqaynayna faraska uu saaran yahay ayaa abu cubayda radia allahu canhu sheedda ka soo arkay markaasuu usoo gucleeyuu usoo cararay cumar markaasuu ku yidhi cumarow yaa amiira almu'miniin madaxdii waddankanaad la kulmaysaa waxaan jeclaan lahaa dharkan xoogaa dhoobadu soo qoyqoysay inaad iska beddeshidoo dhar nadiifa dee aad xidhatidoo dee la madaxdii iyo raggii baad la kulmaysaa kolka aad yar giijisid